سن 10 كنا هورا ku qaadanay files markaan soo sameeyno ka dhigno inuu markaa fileska inoo sameeyo arrayga inoo furfuro habkaas oo kale inoo noqonaya marka imika haddaan soo upload gareyno file baan dooranaya مثلا file baan dooranaynaa halkan wax sawir kuma ogeyn music kuma jirin halkan waxba kuma jirin مثلا waxaan dooranaynaa dhamaantoodba waxba meeshu banaan tahay waxaan sameynaynaa new text file buu ka dhigay afwan oo ka dhigay folder waxaan doonayaa new word bay ka dhig new document kaasan doonayaa markaan soo refresh gareyno upload baan idhi waxay soo saareen name magaciisu waxa weeyaan waa new document and tabkiisuna waxa weeyaan waa application oo word kana soo saaray tabkiisa temporary namekiisuna waxa weeyaan oo inoo yaala temporary namekiisu waa ka temporary name maxaa looga jeedaa halkaas oo baahan la istaago sidoo soo nahay aan hore u sheegnay barnaamij language kala dhahdo PHP gu waa server language weeyaan waa server script waxa la shaqeynaysa server la shaqeynaysa marka website ahaan loo isticmaalayo hadii la soo saaro ama PHP ga la file-kii la soo upload gareynay haduu soo saaro magacii markii file-ka la soo upload gareynay haduu soo saaro exactly ama dhab ahaan file-kani halku yaalo mushkilad waxay ku noqon karaysaa qofka ama dadkii website-ka lahaa sababtu waa maxay baahidkii ama file-shani halka yaaleen baa horta la helay marka dadka hackerka ama jabsan karaya way fududaan karaysaa inay jabsadaan sababtoo ah file-ku u baahnaa halku ataagayo garanaya oo ah inuu halka ataagayo file-keena inagu marka hore aan soo qaadaynay file-keena aan soo qaadaynay wuxuu inoo yaalay desktop-ku inoo yaalay desktop-ka ayuu inoo yaalay baahidkiisu dhabta waxay tahay markaa inuu yidhaahdo sida caadiga baadkiisu dhabta waa inuu yidhaahdo waxa weeyaan waa user desktop inta waan ku soo qoraa kadibna waa geeyaa magaca file-ka oo halkan dhex dhigaa saasay inuu yidhaahdo laakiin hadda umuu sameynay sidii wuxuu yiri file temporary file weeyaan magaca temporary uu sameeyay magaca temporary-ga isaga uu sameeyay halkii uu yaalo uu ka qaado meel kale ayuu ku save gareeyay haddaan tagno exam waan tegaynaa waxaan ku qoraynaa temporary file-keenaasi magaciisu waa maxay waa bfc9 ma haysaa xagga ma yaalo temporary file-kiisu waa kaa halka ma yaalo muu soo dhigin weli marka file-kaas uu sameeyey halkaasuu markaa soo dhigay macnaheedii error maxaad error haysaa wax cilada ma hayo buu yidhi sizekiisu waa imisa waa 0 sizekiisa muxuu uga jeedaa markaa iminka file-keena inagu aanu sameynay laakiin waxba kumaanan qorin marka file-keena markiisa horeba waa barbaridiskan tegaynaa file-kiisuna marka horeba waa 0 haddaan se kusoo qoro wax kusoo qoro waan save gareeyay file-kaygaasi imika waa imisa waa 16 kilobyte dub baan usoo dalacaynaa waxaan leenahay file upload isaga laftigiisii upload waxaad arkaysaa sizekiisii imika uu isbedelay innaga sizekiisu haddaba waxaynu ugu samaysnaa waa kan sizekan waxaynu ugu samaysnaa kilobyte baynu ugu samaysnaa waa kilobyte weeyaan ama 16.384 oo byte ah marka kuwaan ku shaqeynaynaa hadda waa kuwa marka maxaanu sameyn karaynaa waxaan sameynaynaa leenahay maadaama adkaa inoo gujisay qaabkaasaanu sameynayna waxaan sameynaynaa table baan sameynaynaa echo
table عفوا ifta waan bedelina qaabkan umka isticmaalina waxaan isticmaalina marka laba dhibcood halkaasa xaggana waxaanu isticmaalaynaa end f end f tii hore isticmaalaya tan waa isku mid exactly waa same laakiin maxaa kala duwan tahay tan waan habaysan karaynaa oo haddaan doonayno waan yar habaysan karaynaa xagga waan yar qurxi karaynaa marka waxaan leenahay halkan table inagu samee u fiirso waan soo xiray hadda kuurkii php ga xaggan waan soo xiray imika html ma doonaya isticmaalo table oo waxaan isticmaalayaa tr baan isticmaalayaa oo rowiya waan isticmaalayaa table rowiyaan td aan isticmaalayaa isna waxaan ku dhufanaya baan leeyahay waxay ku dhufataa 4 mise 5 ba ku dhuftaa 5 ba ka dhig aan kala eegnahay waxaad ii sameynaysaa haddana waxaad igu qoraysaa baan leenahay intaaba waxaad ii saddex sameynaysaa eco files si ugu yar fududaato filekeena magaciisu muxuu ahaa kan usoo sameynay magaciisu wuxuu ahaa baan nidhi file a soo mahayn file a waayahay haddaan hadda ku noqono waxaan haysanaa name baan haysanaa marka waxaan leenahay halkaas ala waxaad igu qoraysaa file name laakiin waa qaabkee qaabkaasaad odhanaysaa leenahay file name is ka labaadna waxa weyaan u bixinaynaa magaciisa waa type waxaan leenahay xagga waxaan leenahay file type is marka xaggan ka yeelinaynaa waa qaabka aan u qorayno haddaad u qoraysaa qaabkaas oo kale ayaad u qoraysaa exactly saasuu yahay waayahay waxaan u baahannahay haddana waa temporary name weyaan markaan waxaan leenahay tmp name is isna tabtii oo kale weeye waayahay error ma jiro ma u baahnin sizekiisaan u baahanay sizeka aynu baahanay xaggana waxaa leenahay markaa waa size file size is markaa kaa shanaad inaga masax afartaa weeye okay waan soo dooranaa mar labaad fileka ma inoo xidhan yahay waa inoo xidhan yahay sax weeye upload xaggaasaan gelinaa sorry td waa sax waxaan leenahay markan border equal 1 border saasaan ka dhigaynaa waxaan leenahay markaa saasuu inooga dhigay marka wuxuu yihi file sidaas weeyaan kaa weeyaan macluumaadkan haddaba aan u baahnaa hadda waan helay haddaba sidaan u upload garaynayaa haddaba aan filekeenii aan doonayey ugu soo dhex dhigaya filekan doonayey ama folderkan doonayay wax weeyaan wuxuu inoo yaalaa seed exam buu inoo yaalaa ht documents buu inoo yaalaa bro upload kan doonayna waa kaa in doona dhex geyno cashirkeena dambe ayay nagana insha Allah taala